leeyihiin badaha gobolka awdal u leeyihiin dhulkeena Soomaaliyeed hadday tahay istiraatiijiyad hadday tahay taariikhba wax weyn bay noo leeyihiin halkaasi waayo waxa ku duugan taariikh aad u weyn oo Soomaaliyeed waxa kaloo ay halkaasi tahay meel istiraatiiji ah oo badaheena Soomaalida haddii halkaas Itoobiya ay hantido caqabad weyn kala kulmi doonaan badaheena kale waa inaynu dhammaan ummadda Soomaaliyeed si wada jir ah gacmaha isu qabsano si aynu u difaacno dhaxalka awoowayaasheen waa inaynu hal meel uga soo wareegsano Itoobiya damaceedu waa cad yahay insha Allah waxaan kaloo jeclahay halkan inaan ka sheego Brussels waxaa ka dhici doona mudaharaad weyn oo insha Allah aan ku muujin doono dareenkeena iyo midnimadeena iyo meeshaan ka taaganahay in ay badaheena Itoobiyaanku ay gacanta ku dhigaan insha Allah mudaharaadkaana waa inaan ka soo qayb gashaan qof kasta oo qaangaara oo Soomaaliya waa inuu ka soo qayb galo wadankan meel kasta ka joogo iyo hadduu u sheegi karo wadamadeena ku dhow cid kasta oo ka iman karta waxay ku tahay waajib saaran inuu ka soo qayb galo